وإنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حلقتنا لبعض waxaan ku soo qaadanaynaa maanta barnaamijkeena akhlaaqda qofka muslimka afinta ama al-afw wa tasamuh. Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa waxa uu ku leeyahay falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum. Ayadan culimada tafsiirta waxay dhahaan waxay ku soo degatay fi sha'ni Abi Bakr radiyallahu anhu. sababtan waxay ahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam zawjadiisa ummul mu'minin Aisha oo lagu qadfay in ay ku dhacday zino xumaantaasi qadafkaas dad ka qayb qaatay waxa kamid ah mistaxna wuxuu Abu Bakrna waxay isku hayeen ilmo habreed. mistaxna wuxuu ahaa hooyadiis kuwa ku noolaa guriga Abu Bakrna uu kafaalo qaaday noloshooda Allah subhanahu wa ta'ala kadib. waxa dhacday qisada xadiithul ifki dad ka qayb qaatay mistax iyo dad badan jiray. markii mistax barnaamijka ka qayb qaatay Abu Bakr wuxuu go'aan ku gaaray in uu ka joojiyo gurigaas cuntada uu ka cuni jiray iyo nolosha uu ku qabay. markuu go'aan ku gaaray uu guriga ka buriyay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri falyafu iska afiya wal yasfahu qalbiga ufura ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum. miidin jaclaan ilaahay inuu qalbigiina dambigiina dhaafo. marka Abu Bakr radiyallahu anhu wuxuu dhahay waan jecelahay rabbiyow gurigeena mistax uu ku soo laabtay. barnaamijka marka at-tasamuh wuxuu cagsi ku yahay i'tidaarku wuxuu ahaa qofkii khaladka galay inuu ku yimaado kuraale galiyo kan laakiin waxa qofkii khaladka galay inaa adiga iska cafisi. cafiska marka laba loo qaybina cafis oo aad cafisay afka ka cafisay oo wali qalbiga wali xoogay ku jiraan cuqdad ah iyo cafis labaad oo qalbigana walaalka u nadiifis. dabcan barnaamijkan akhlaaqda muslimka waxaan u soo jeedinaynaa waxay tahay in nafteena waa inoo noqoto aan ka faa'iideysano diinteena suuban. sidaas daraadeed waxaa la sheegaa marka tasaamuxa waxa ugu weyn waxay tahay in walaalka asoo cafis ka dalban inaad ilaahay dartiis u cafisi. waxaa dhacday ghazawaadka mid kamid ah asxaabta in Abu Bakr hanti keenay, Umar hanti keenay, Uthman hanti badan keenay ridwaanullaahi ajmaciin. saxaabi kalena inuu waayay hanti uu keeno iskana laabtay gurigiisa uu iska ooyay soo waayay in wax hanti sadaqasta waayay. habeenimana uu ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu seexanayay uu go'aan gaaray in qof kasta muslim ah oo cirdigiisa iyo naftiisa u gafay inuu cafiyo una dhahay saacadan ka bilaabata waxaan cafiyay dhammaan qof kasta ii gafay qof kasta cirdigeyga ii galayna xumaana waan cafiyay. cafiskaas kadib habeenkaas uu ku seexday nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintii wuxuu sheegay sadaqa weyn in qofkaas la baxay. marka la weydiiyay ninka xaalad sadaqada weyn la baxay marka la weydiiyay isqari kadib uu ogaaday nabiga asagana uu sheegay waxa la sheegay marka cafis weynka uu sameeyay darteed inuu gaaray ajirka asxaabta sadaqada la bixeen. marka fursad qaali noo tahay inaan walaalaha muslimiinta walaalaheen ee xadgudubka nagu sameeyay inaan iska cafino aan tusaaleyno darsi fiican aan walaalkeena waxa u qaadan qalbigana aan u furno. ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu ka sheekay jannada وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ودقدقة جنة بلعيد ولقي السماوات كالأكل اسكدري تاسولو ديار متقين مركو الله سبحانه وتعالى متقين تسيسي فينا وحيري الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وحكو جرا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس dadkii iska cafiyaan macnaha cuqdadna ay soo qaadan qalbigooda. marka xalaqadana labaad intaas ay ku ogtay insha Allah ta'ala barnaamijkeena xalaqada aan u macdarnay tubta toosan ama akhlaaqda qofka muslimka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.